moogtahay inay jiraan xayawaano dhab ahaantii dhinta ambaba geeriyooda kadib markay dhalaan caruur. kow shinnida malabka. shinnida labka ah ee loo yaqaano dronisku waxay ku nool yihiin nolol ka duwan dhammaan kuwa kale, ma shaqeeyaan sidoo kale mana soo ururiyaan malabka, balse shaqadoodu keliya waa inay la kulmaan oo ay ka dhalaan boqoradda. laakiin marka ay hawshaas qabtaan jidhkooda ayaa u kala go'aya laba, isla markiibana waa ay dhintaan. waa mid naxdin badan, laakiin waa qorshaha uu Rabbi u dejiyey si boqoradda ay u sii wada taranka shinnida markastana ay u sii taranto. 2 brain mantis. noolahan loo yaqaano mucayda marka ay gaadho waqtiga taranka labka iyo dhadigu waa ay kulmaan, balse sheekadooda jacayl waa mid ku dhamaata si muruga leh. midka dhadigna wuxuu cunaa midka lab inta lagu jira taranka iyadoo madaxa ka bilaabaysa kadibna wada cunaysa, waxayna sidaas u samaysaa si ay nafaqo dheeraada uga hesho oo ay ku dhigto ukumo xoog leh. labkuna iskama caabiyo, waayo xitaa marka uu dhimanayo wuxuu noloshiisa u horeeyaa jiilka soo socda. soo la yaab maaha daawade. 3 sea lumbary. xayawaankani wuxuu badda ku noolaan karaa sanado isagoo dhiigga ka nuugaya kalluunada kale oo ka laalaada. wuxuu u eegyahay bahal cabsi leh, laakiin marka uu gaadho waqtiga taranka wuxuu joojiyaa cunista, wuxuuna u dabaashaa dhanka webiga si uu u dhigo kumanaan ukumood. intaas kadibna jidhkiisu ma awoodi doono inuu ka soo kabto dadaalkii iyo hawshii uu galay, sidaas darteed wuxuu u dhimanayaa si degdega. soo la yaab maaha daawade. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo 3 xayawaanan soo sheegay midkii ayaa xoog kaaga yaabiyey? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube iyo facebook profile ka saaranna aad subscribe dhahdo.